Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan this is Afla Academy. Please maantadan insha Allah sidaad ka aragtiinba sabuurada oo halkan ay noogu qoran tahay casharkeena wuxuu ku saabsan yahay Demonstrative Words. Waxaan ku jirnaa lesson 2. Lessonkii kan ka horreeyay waxaan soo baranay Demonstrative Words anagoon soo aragnay sida ay u kala baxaan intay ku kooban yihiin. sidoo kale tusaalooyin waan soo aragnay laakiin maantadan casharkeena labaad waxaan arki doonaa ayadoo example ah ayaan arki doonaa insha Allah. Fadlan channelka Afla Academy subscribe saaro haddii aan joogteen casharka la soco aduu ilaahdo insha Allah. Marka aan guda galno waxaan meeshan oo qoran oo ah Demonstrative Words. Ereyga Demonstrative Words waxaa yiraahdaa waa tilmaame sidii horaan casharadii horaan aan soo marnay aan ku soo aragnayba waa tilmaame ereyasha lagu tilmaamo wax ayaa yiraahdaa Demonstrative Words. marka rabtid inaad dhahdo kaasi waa hebel kaasi waa sheygaas kani waa hebel kaasi waa hebel marka ereyashaas yani magac bixintooda ayaa waxaa yiraahdaa Demonstrative Words. marka guud ahaan intaas ayuu ku kooban yahay casharkeena maanta. fadlan waxaan fiiri doonaa examples of Demonstrative Words here. waxaan fiiri doonaa insha Allah examples of demonstrative examples of demonstrative words. waxaan rabnaa inaan bixino tusaalooyin oo ah yani ereyasha tilmaamayaasha sidii casharadii kan ku horreeyay aan kusoo aragnayba waxaan dhahnay demonstrative waxaa ka mid ah this, that, sidoo kaleeto waxaa kaloo ka macnahay these iyo those. tusaale intaan ayaa ka mid ah examples of demonstrative words. intaan ayaa ka mid ah this casharkii kan ka horreeyay waxaan dhahnay waxaa loo isticmaalaa waxyaabo ku soo dhow ayaa loo isticmaalaa. sidoo kaleeto waxaan dhahnay that waxaa loo isticmaalaa shay ka fog ayaa loo isticmaalaa. this waxaa loo isticmaalaa sidoo kaleeto waxaan dhahnay waxyaabo badan oo ku dhow yihiin ayaa loo isticmaalaa markay yihiin 1 2 3 wixii ka badan ayaa loo isticmaalaa this. and sidoo kaleeto those waxaa loo isticmaalaa dhahnay wax badan oo ka fog ilaa halkaas ama ay ka yaalaan ayaa loo isticmaalaa. marka daraad intaan soo aragnay tusaalooyinkooda maantadani waxaan rabnaa inaan aragno ayagoo la isticmaalayo kaasi waa hebel tani waa hebel. marka aan la socono waxaan leenahay marka so for example here we are saying this is a boy. This is what? This is a boy. marka leeyahay this is a boy kani waa wiil yani for example qofkani intuu ii taagan for example this is you kani waa adi kan markaad aad tahay waxaa rabtaa inaad timaado qof ku dhow dan waxaa leedahay this is a boy you know qof ku dhow. you understand this is a boy kani waa wiil. okay sidoo kale waxaa leenahay this is a tree. This is a tree. marka lana waxa weeye kani waa geed. sala kaleeto anta ayaa taagan tahay you are here then this is a tree. so this is a tree. so marka waxa leedahay this is a tree. kani waa geed. this is a tree. kani waa geed. okay sidoo kaleeto waxa leenahay this is for this kani waxa weeye this one. sidoo kaleeto waxaa leenahay this is a chair. this is what? this is a chair. kani waa kursi. this is a chair. kani waa kursi. for example you are here intaad taagan tahay then when you are here this is a chair that you can sit
You see? So we are gonna, this is a chair. Kani waa kursi. This is a chair. Kani what? Kani waa kursi. This is a chair. Kani waa kursi. Okay? That is how we this markaan joogno. So this was now marka waxaan rabnaa inaan ka dhigno hadana ayagoo kaas la askari waa inoo dhawin soona. Marka inoo dhawin waxaan dhahnay this ayaa loo isticmaalaa. This ayaa loo isticmaalaa because they are near to us. Laakiin markay naga fog yihiin ayaa loo isticmaalaa that. That is this one. Okay, let's look marka that. That aan fiirino marka. That ayadana saalo wax ka mid ah waxaan leenahay that is a girl. That is a girl. For example, you are here anta taantaadi. So this is you. Okay. You see? That is what? That is a girl. That is a girl. Taasi waa gabar. That is a girl. Taasi waa gabar. Number labo waxaan leenahay that is a moon. That is a moon. Taasi waa bisha. That is a moon. For example, this is the moon. You see? So that is what? That is a moon. Taasi waa bisha. That is a moon. Taasi waa bisha. Sida waxaa weeye that is a bird. That is a bird. That is a bird. Marka lena waxaa weeye taasi waa shimbir. For example, intaad taagan tahay, you are here. So, and this is the bird. The bird is flying. The bird is flying. That is a bird. Taasi waa shimbir. That is a bird. Taasi waa shimbir weeye. Okay, that is that. Ereyga that marka wax loo isticmaalo wax ka fog ayaa loo isticmaalaa. So let me add another one here. Then waxaan leenahay that is a star. A star. So that is a star. Kaasi waa xidig markaan leenahay weyn. Are you understanding? Because xidigu uu ka fog yahay sidaa daraaddeed waxaa loo dhahay that is a star. Kaasi waa xidig. Because for example, you are standing here intaad taagan tahay and xidig waxaa weeye somewhere here. So when you are just pointing markaad tilmaamayso waa inaad tiraahdo that. Kaasi waa inaad tiraahdo. So ereyashana ayaa waxaa la yidhahdaa demonstrative words. Ereyasha tilmaanta la yidhahdaa. Waxyaabo ku tilmaamay. This is a boy aan dhahnay. This is a tree aan dhahnay. This is a chair aan dhahnay. That is a girl aan dhahnay. That is a moon aan dhahnay. That is a park aan dhahnay. That is a star. You see? So this is what we wanted to learn today for as our lesson. Please channelka dad maanta aad ku cusubtahay subscribe garayso si casharadan oo sequences ka ay ku soo gaaraan insha Allah. Dul ay raado marka waxa inoo balanaa insha Allah casharkan xiga. Thank you very much.